السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود يال كسو دوادا وركا كوبانية تلفزيونka يرادي hadalada Puntland oo galabtaho jimco ah idinka iimaanaya studio hayaga magaalada Garowe qodobada warka koobana waxa ugu dooron dawladda Puntland ayaa galinkii hore maalinimadan jimcaha waxay magaalada Garowe ku soo bandhigtay sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada booliiska maamulka Soomaaliland ee magaalada Laascaanood kaasi oo isaga soo baxay maamulkaasi isagoo watay gaari ciidan iyo sidoo kale qoryaha fudud kadib markii uu adkeysan waayay tacadiyada baahsan ee maleeshiyaadka laga keenay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ay ku hayaan shacabka aan waxba galabsan ee magaalada Laascaanood ayuu garowsaday inuu isaga soo baxo maamulkaasi sarkaalkan oo watay gaari ciidan iyo qoryaha fudud waxaana wixii hadda ka dambeeyay uu qayb ka noqon doona howlgalada xoreynta gobolka Sool sida uu Puntland TV uu sheegay أنا magacaygu Cabduwali Cali Xirsi oo ka soo baxay gobolka Sool markii aan adigu garawsanay oo aan tashaday markaan arkay shacabka tacaadiga badan ee lagu hayo ayaan tashado ka soo dhaqaaqa hadana Garowe waan joogaa gudoomiyaha gobolka Sool ee dawladda Puntland Abubakar Cabdi Geelle iyo wasiirada guddiga difaaca ka tirsan ee dawladda ayaa soo dhaweeyay sarkaalkan waxayna ugu baaqeen inay isaga soo baxaan xubnaha kale ee ka soo jeeda gobolka Sool isla markaana xilligan ku jira ciidamada maamulka Hargeysa mas'uuliyiinta dawladda ayaa dhanka kale waxay ku dhawaaqeen abaalmarino iyo darajooyin uu mutaysan doono sarkaalkan oo lagu magacaabo Cabduwali Cali Xirsi halka waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta Cabduwali Cali Xirsi oo ka mid ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska qaybta gobolka Sool oo halkan aanu yimi iyo gaari uu watay ciidan oo halka ku soo dhaweynaynaa isagana maanta halkan lagu soo dhaweynayaa wadayaasha kale ama saraakiisha kale ee deegaanka ka soo jeeda ee jeegaanta u shaqeysa waxaan leenahay nimanka ka soo baxa waxaan u ballan qaadanaa abaalmarin fiican waxay u imanayaan gobonimo waxay ka soo baxayaan gudnimada halkan waxaan soo nimay inaan ku soo dhaweyno sarkaal ka tirsanaa ciidamada jeegaanta oo iskaga yimi isagoo wata 5 askari oo lagu magacaabo Cabduwali aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa wuxuuna mutaysan doonaa insha Allah darajo iyo xurmeyn inta uu mutaysan doonaa cidii kale ee lamida sida yeesha sidii horeba aan ugu ballan qaadnay guddiga difaacu bishii May horaanteedii go'aamadii ay soo saartay ku jirtay waxay mutaysan doonaan dalacaad oo darajadoodii iyo wixii ka sareeya iyo abaalmarinta way mutaysan doonaan inta ku hadhay inay ka yimaadaan u naxaan oo u diirnaxaan shacabkooda inay u diirnaxaan gabdhahooda meesha xabadda lala dhacayo waa dumarkoodii waa hooyooyinkood inaad dhex joogtid waxay ku tahay duulinimo waxaan ku leenahay ka soo baxa imaada dhulkiina u kaale xoreeya dhulkiina gob noqda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh